now. Erayada yalla xagga MMA wadadku waa wala la haadir raba. Musiga tamaskar marasa dhageysa boon marta city. مبارك سولو ولا سولو جمعة مبارك سولو انت صدر لسي ما سوي صدر سيشر جريد صدر برنامج كم لابد دونا مردوي صودا وادا والله صودا وادا برنامج كم لابد دونا مردو هالسنة عصوبة برباركة شفت كدر دبا جعلادين إلى دقيقتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليال طبعا إلى جمعة مبارك رالي هذا برنامجك waxa ku soo noqonay inaan jimcaha ku soo celino ayaan ku soo noqonay barnaamijka insha Allah jimcaha ayaan hadii sidii caadadu noo hayd madama dad badan weydiisteen sabtida waqtina aan isku dayay inaan sameeyo waan kari waayay midaan ahay ma insha Allah waxaan ka dhigay jimcaheeni baan ku soo noqonaynaa walaalayaal intaana waxaan falaqayn doonaa siyaasadda Djibouti iyo siyaasadda diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Djibouti taa oo Maxamed Cawaale madama uu dhigtay relation international oo iyaga cilmi badan yahay isaga falaqayn doona arrimaha siyaasadda oo kale ee diblomaasiyaddu markay dhacdo madaxweyne Farmaajo waa ninkii malqayay wuxuu yiri dawladda Eritrea waa in laga qaado una qabataynka hubka Nations Unies ugu baaqay dadkii reer Djibouti oo dhan waa dadaalkan u sameynay Soomaaliya walaalihiin waxaan u sameynay say noo galayaan no anagu Soomaalidu waa walaalihiin waa siyaasad weeyaan Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumaddiisa walaalayaal Soomaalida iyaga kala jibiya 4.5 ka waxa la yiraahdo Djibouti baa laga aasaasay waa ko talabaadna waxa weeyaan dad dhan oo Soomaaliya milooy cad ilmaha Ras Kamboni dawladda Djibouti baa kala jibisa meel jeegaanta oo afar qof aariyay arbaashi way duushoniyo hadda ixtiraafkiiba noo horeeya dad waxba hayn ayay karbad casaan u dhigtaa sida Farmaajo ama dadka walaalaheena ee koonfurta ugu xumeeyaan dal Soomaaliya ay kala jijibinayaan marka annagu as fikradahan uma ba aragnaba dib kelmadda wuri taana waa laga aqoon badan yahay aqoon Maxamed Cawaale ayaa taa falaqayn doona isaga u deysanaya kadib taana waxaan arkaynay Ismaaciil Cumar Geelle intiisa amba gabadha in adeertaya balbalo waa lagu gaajoonaya dadkii reer Djibouti gaajaleysay iyaduna kolba il bay kareysanaysaa markabo iyo adduun lacagteennina way baabiinayaan dadka aniga dad badan baa jira dumar badan iyo dad badan oo anay soo caay Ismaaciil Cumar Geelle alkool ku tilmaamta Ismaaciil Cumar Geelle waa xaaji Ismaaciil Cumar Geelle waa nin sharaf leh aduu sharaf leh inatiis waxa ma sameeyeen haday khadar xad sharaf leedahayna inateed waxa ma waxayseen dadka sharafta leh awlaadooda laga arkaa marka inta kuma sii dheeraanayo bal insha Allah siina sheer gareeya waxaana rabaana inaan soo qabto aqoon Maxamed Cawaale waana ka qayb galaysiin
si qurux badan ayaan u falaqayn doonaa arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo Djibouti waa wixii muhiimka kadibna waxaan isdul taagi doonaa hadduu Ilaahay nafta noo daayo shirkii Dirdhaba ka dhacay ee barbaarta ee si qurux badan Soomaalida lagu soo dhaweeyay ee hablaheeni qurux badnaay Mijikuule Ciisana si fiican ugu soo dhaweeyay taa waa sharaftayadii waa sharaftii Ciisa Dirdhabana Ilaahay ku suki waa deegaan Ciise waqtiyaal waxa jiri jiray laga xishoon jiray ciisanimada laga xishoon jiray dadaalkii badnaa waa qoyaan Maxamed Cawaale aniga iyo dhowr yar oo dhalinyaro oo ku jirta reso socialka bar dawladda u shaqeyso ciisanimo ka hadasha iyo bar kale oo qoomalood ku daba dhuuban oo hadana ciisanimo stiil ka hadasha way fiican tahay waa wax fiican maanta waa lagu faanayaa shalayna waa laga faani jiray alxamdulillah rabbil caalamiin waa arrin fiican ciisana waa wada ciise ninna caarama dheero aad u jeceliya kelmadda insha Allah bal waxaan soo qabanay aqoon Maxamed Cawaale kolley ma arkayo yirsuga intana insha Allah yirsuga wali ma arkayo insha Allah waxaan sugay inaan soo qabto wali ma soo gelin ma ka fila bal Maxamed Cawaale sugayna insha Allah bal isaga soo qaban waan wala hadalnay yirsuga marka arrimaha waxaan isdul taagayna walaalahayo maanta Soomaaliya iyo electric iyo wax sidaaya iyo dalka ma inuu Ismaaciil Cumar Geele maamulin ee dalka maamusho Khadra Habeeso mar dhowna waxa la rabaa in lagu dhawaaqo dalka Djibouti Somaliland aqoonsigeeda dumar badan baan arkaynay oo ka hadlay farmaajo waxay ku qabteen dawladda kursigaagii marna waxa dhana ninkan baa u dhigtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma la yarkaa si fiican ma lay maqlaa si fiican ba Maxmed lagu malqa ku soco ma la yarkaa soo ma daaqadan yar iska ay daaqadan yar xidha haan yar iska xid iftiinka si fiican lagu markayo walaalahay inta si share gareeya meel kasta dhiga kadibna mar walibana waxaan ka dhigaa videoyaasha YouTube aan ka dhigaa YouTube-kayga subscribe ii taabta subscribe YouTube-kana igala socda insha Allah soco Maxmed iyo kaada yar hagaajisto meesha hay ini kala si fiican ku soco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله لا يرادي آد بدو ما ستين بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت أرن آدي آد وقيمة بدن بندونا يا إنان سفيا عنو تابتو وحان دونا يورت نبديدو سو شيء وحوك هذلي أريك الجيبوتي يمانت الصوماليا كلا مارت دحت على وحل أولو يقال سيدا مارت فرسمة عليه علمي قاله ليدادو dhibaatada diblomaasiyad amba crisis diplomatic amba maartay diplomatic crisis marka horta waxaan ugu horeysiinayaa dad badan baa horta ka faaloonaya oo shacaba amba xagga Djibouti ahaato amba xagga Soomaaliya ahaato wayna wanaagsan tahay oo maanta waagii hore intaba ma haysan dadka Soomaaliyeed amba dadka reer Djibouti ma haysanin wax ay fikradahooda ku dhiibtaan way jiraan qaar maartay argoosi uga hadlaya oo Djibouti ku xumeele qaar uga hadlaya maartay farmaajo ku argooso qaar ka daacad tahay iyo qaar ma taqaana xitaa biyahaba u shala dhacaya inta way leeyihiin laakiin waa ilaahay mahadi oo ma jirin inta waagii hore laakiin anigu fikradda aan ka leeyahay waxa weeye waxaan doonayaa inaan si fiican aan horta dadka aan ugu iftiimiyo walaalayaashana dhageysanaya iyo kuwana daawanaya dacladooda to ugu horeyso horta dalka Soomaaliya waa dal xor ah maanta dalka Soomaaliya farmaajo ka hor
adduunyada waxa uu aqoonsatay inay Soomaaliya soo laabato haddaba waxa la isweydiinaya la isla dhex maraya farmaajo wuxuu kaga dhawaaqay arrinka uu kaga dhawaaqay Asmara dhibaato ma u keenaysaa Djibouti ma garanayo inay dhibaato u keenayso laakiin ma qalad ba mise waa sax waa qalad weeye oo dad walaalaha oo maaragtay ay niga dhaxeeyaan xiriir ay niga dhaxeeyaan dad walaala ah inta badiyaasaa looma garo laakiin waxa isweydiin leh maxaa ku kalifay farmaajo madaxweyne farmaajo inuu Asmara uu yidhaahdo ha laga qaado cunaqabataykii tii oo ay weli dhibaato dalka Djibouti ay haysato walaalayaal waxa ugu wacan baan idin sheegayaa dalka Djibouti yadaa faragelin xoog leh ku haysta dalka Soomaaliya waxay Soomaaliya ka dhismi laadahay maanta ahaan waa dalka Djibouti iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Ismaaciil Cumar Geelle waana lagu magacaabay isaga waa lagala wareegay isagu dalka ma maamulo faragelintaasi markaa walaalayaal maxay tahay faragelintaasi waxay tahay walaalayaal Ismaaciil Cumar Geelle dawladdiisu meeshii waqooyiga la oran jiray imika Somaliland la yiraahdo yaga faragelin weyn ku haya oo dhaqaale siiya oo waliba u dira maaragtay wafti u dira wafti saasaro oo maaragtay wasiir leh waliba maaragtay maxamed ma telefoon baa ku soo galay waa caligi waliba musabixi waliba ku soo dhaweynaya kaarbad cas amba loo yaqaano Faransiiska tabiicas ku soo dhaweynaya sidii uu madaxweyne madax bannaan dal ka socda waddan madax bannaan cali baa kugu soo celinaya ka fila ha warniyo ninkii la hadal cali baa aniga igu soo celinaya dhanka kale yar hadal oo ka dhe live ku jiraaye yarsu ka dhe anigii buu igu soo celinaya ku soco iska soco waan yar sugaynaa u kaadi cali la hadlayso anaa ku soo wiciye yarsug anaa ku soo wiciye yarsug anaa ku soo wiciye live ku jira telefoon ka daa live anaa ku soo wiciye soco markaas haddaba marka farmaajo ma garan karno ujeeddada uu sameeyey ma dawladda Djibouti tusaya faragelinta ay ku hayaan mise dan isaga dalka Soomaaliya u gaar ah yu isagu maaragtay arrimihiisa ku cabiraya waxa u gaara walaalayaal Soomaaliya way jirtaa oo sida ay maanta u madax banaanaato in ay Soomaaliya wixii u dana waxa u dana dhibaatooyin badan oo dalka Eritrea ay ka qaban karto Soomaaliya way jirtaa tababar ay ciidanka u sameyn kartaa jiri karta waxa jiri karta xitaa al-shabaab oo dhibaato weyn ku hayso oo weligoodba lagu tuhmi jiray Eritrea inay saacido inuu uga jeedo war nimanka hay u caawinin marka diblomaasiyadda waxa la sameeyaa marka dal ad madaxweyne ad wala hadlaysiin waxa ad oranaysaa adigu dalta baan rabaa annan dalta baan ka rabaa buu ku leeyahay labadii dan yaada la isku idaarsadaa laakiin ma Djibouti ku xumeeba ma garan karo isaga ka jawaabi kara farmaajo laakiin waxa ay dadka shacabka reer Djibouti inay fahmaan dalka Djibouti iyo dawladda Djibouti waxa ay ku sameynayso Soomaaliya faragelin weyn oo weyn wixii wanaaga u sameynayso dhanba maanta burburiyay iyo ku haysaa walaalahayo waxay ku haysaa gobolka waqooyiga ee maanta Soomaaliland la magac baxday yay dawladda Djibouti si waxay dal xor ay yihiin oo kala ula dhaqmaan xitaa waxay faragelin ku hayaan ya igara Allah inta ka dhaxgal Puntland saa uma soo dhaweyso si uu soo dhaweyso maamul waka Puntland xitaa safaarad baan u sameynay yiraahdeen oo waliba barbar socda safiirka idile Djibouti u fadhiya Muqdisho safiir baan uga furnay yiraahdeen Djibouti marka walaalayaal dalka Soomaaliya soo celinayna ay leedahay Djibouti marka maxay tahay runtu macayday wuxuu oran jirtaa Allah yarxama runtu ma fanta ma waayo anigu dalka Djibouti waa dalkaygii Soomaaliyana waa dalkaygii inkastoo anigu maanta aan uga dhawahay dalka Djibouti aan uga dhawahay laakiin dalkaygu haddii uu dhibaato qalada uu samaynayo shacabkiisina ku samaynayo
dadkii walaalaha lahaana ku samaynaya iminka maanta dalka Djibouti waxay dani ugu jirtaa Soomaaliya oo soo noqota haddaba farmaajo markuu sidaa ku sameeyey oo isagoo casbara ka hadlay waxaa jirta walaalayaal si dawladuhu haddaba u xisaabtamaan baa jira Djibouti may samaynin sidii dawladuhu u xisaabtamayeen ay waagii horeba Djibouti samayn jirtay waxaa la sameeyaa waxaa jirta arrin diblomaasiyeed shucuur la iska qayliyo oo maaha waxaa la sameeyaa waxay ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti inuu safiirka Soomaaliya u yeedhay safiirka Soomaaliya u yeedho uu yiraahdo war ismacnayn buu madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle degdeg uga rabaa farmaajo hadalka uu ku hadlay maxaa keenay markaa buu safiirka Soomaaliya farmaajo kolka madaxweynihiisa la hadlaya uu leeyahay madaxweyne dawladdii Djibouti waxay naga rabtaa ismacnayn degdeg ah markaasay dawladuhu kolka ay sheekaystaan oo ay qiraan ay u sheegaan dhibaatada ugu wacan walaalayaal taariikh baan inii sheegayaa Djibouti iyo Soomaaliya kala dhex martay mar waagii Xasan Guuleed Allah u naxariistay uu madaxweynaha dalka Djibouti ka ahaa 1981 nin maajeerteena oo kulmiska ku jiray oo lacagta u ururin jiray oo meelsa kaga jiray jahabadii loo jiray SSDF dalka Djibouti baa lagu asaasinayay waxaan ka wadaa lagu dilay oo lagu rasaaseeyay Djibouti dhexdeeda galab shantii galnimaan jecelahay dawladda Djibouti sida imika sameynayso warqad ciyaala suuqnimo ee majlis lagu soo qoray intay soo qorto oo sida bay lagu soo bay oran dawladda Djibouti Xasan Guuleed wuxuu kolkiiba u yeeray safiirkii Soomaaliya wuxuu yiri si degdega arrinkaasi waa inaad uga soo jawaabtid Soomaaliya safiirkiisi Maxamed Siyaad Barre la xiriiray Maxamed Siyaad Barre uu soo beenayay sheekadii ma sidaas saabweeyna dawladdii Djibouti haddaba waxay gashay baaritaankii waxay ogaadeen inay Soomaaliya ka dambeysay oo waliba ninka la yiraahdo uu amarka bixiyay Daahir Rayaale la oranayay oo sirdoonka Soomaaliya oo safiirka safaaradda Djibouti ee Djibouti degan safaaradda Soomaaliya oo Djibouti degan u fadhinayay Daahir Rayaale kolka way masaafurisay raggii lagu tuhmay inay dileen ninka maajeerteena jaabada ku jireen waa la xiray sheekadiina xaqii bay labadii dal safaarada laba kala qaadan la isma dhibaatay labadii wadanba sidaaba u soo ceshadeen arrimahoogii waayo marka dambe waxa ka sameeyaa waa kii markii dambe 80-nadii aad isugu soo dhawaadeen oo Xasan Guuleed la tagay Allah u naxariisay Djibouti tagay Siyaad Barre Djibouti bidi Siyaad Barre Soomaaliya tagay laakiin tani hadda maxay kaga gedisantahay sida ay maanta ula dhaqmeen Soomaaliya ula dhaqmeen dalka Soomaaliya Djibouti maxay sameeyeen walaalayaal waxay sameeyeen warqad anu aan ka naxay markii la ii soo diray warqadaasi warqad diblomaasiyad maaha waa warqad majlis lagu qoray warqada u barlo wallahi oo billahi warqadaas waligay ma arag warqad ingiriiska xaqana ku baranay aniguna student of diplomacy baan international relation baan anu baaratay aan iskoolada u tagay international relation iyo relation international aba political science la arrimaha dibadda diblomaasiyadu sidaa maaha diblomaasiyadu sidaan soo sheegay waxay dalka Djibouti inay safiirka Soomaaliya u fadhiyo Djibouti inay u yeedhahay laakiin maxaa la sameeyay warqad lagu soo qoray majlis yaa loo soo dhiibay balalo waliba u fiirsada warqada walaalayaal warqada ciwaanka dusha amba la yiraahdo ma taqaan papier teedka reer Djibouti u yaqaaneen amba Soomaaliduna taqaan letterhead ay dhahan Ingiriiska loo yaqaan letterhead kuma qorno wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee Djibouti kuma qorno waxa ku qoran safiirka safaaradda Soomaaliya ku qoran warna wallahi kuma qorno waatan baan arkay ha wasaaradda arrimaha dibadda inay ku qornaataa because balalo waxa xukuma wasaaradda arrimaha dibadda ee Djibouti ba xukunta warna marka haddaba sida imika arrinkani shacabka reer Djibouti ee la gelinayo waxa haddaba looga daleeyay maxay tahay walaalayaal waxa looga daleeyay arrinkani waxa wata Ismaaciil Cumar Geelle xaaskiisa iyo qolooyinkii jeegaanta ee Isaaq Cali Cabdi iyo waxa wata Maxamed Xasan Kaleena
كعلي عبدي عيال كيرا لقى إلى الرجبوت عيال كيرا كيلا ليانك وارون وين عيالك لقى إلى اليوم وارون تهذا ولا شيء وين لقى إلى اليوم وارون وين الله سعدان هو يقال شعب كريه جيبوتي وحوي هاي waxa ujeedada ayagu ay leeyihiin maanta horta Ismaaciil Cumar Geele waxay doonayaan shacabkana daawanaya inay fahmaan Ismaaciil Cumar Geele dalka maba joogaba waxaan marka la sameeyo diyaarad buu raacay Addis Ababa aqalkiisii buu tagay sida ay noo sheegayaan diyaaradda uu raacayo ma Facebook laga arkay dalka isagii oo joogin yaa warqada la soo qortay waxa kale oo meesha jooga wasiirka arrimaha dibadda kama hadal muxuu wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Yuusuf ninka la yiraahdo muxuu uga hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti iyaa ka hadlay balalo horta waxa weeyaan macallin malcaamadeed buu ahaa malcaamad buu dhigi jiray oo quraanka ciyaalka u dhigi jiray markii dambana odaga Xaamud baa soo qaaday oo ula hadlay dawladda waxa lagu daray meel la yiraahdo Somali pen ay u bixiyeen beri aan oran jiray war Soomaaligan dhigayna bay leeyihiin luqada Ingiriisiga way isticmaalayaan pen ila waa Ingiriisi ereyga waliba waxaan u maadaama aan dad wax qorahayn ereyga af Soomaaliga qalin naguma jiro ereyga af Soomaaligu luqada Soomaaliga qoraal la yiraahdo mahina laakiin qalin ma jiro af Carabigu leeyahay Ingiriisku leeyahay oo maaragtay stilo baa leeyahay Englishkuna pen baa leeyahay taabu ka shaqayn jiray balalo wuxuu ka faa'iideystay shaqadaas dhaca waxaan uga hadlayaa balalo adoon inaan u taabto dadka safiirka Djibouti ee Soomaaliya u fadhiya nin u dhisan ama u bisil cilmigeegiina leh maaragtay arrimaha dibadda amba wasaaradda arrimaha dibadda ee Djibouti soo maray oo u leh maaragtay experience amba khubara u ah maaha isaga warqadda isagu ma qorin waa loo soo qoray waa loo dhiibay wuxuu laakiin balalo meesha ku gaaray balalo waxa lagu dilayo wadaadadii US markay soo kacday ay ku kacday dalka Djibouti buu carari uu tagay maxay ahayd adeecada Djibouti kolkiiba laga faa'iideystay oo maaragtay laga dhigay wasiiratu safiir waa kuwi maxmed aan ka dhaxgalay ninkan xamuda sheegaysa wararkii soo koriyay Sheekh Abdiraxmaan Bashiir amba siyaasi Abdiraxmaan Bashiirna isaga ka bixin jiray jaamacadda sama ula socda waalidin kaar waa sidoo yiraahdo laakiin san camal waxaan ka wada isaga doonayna u taabto balalo shaqo kuma la horta diblomaasiyadda maxaa si hadaba saa u lahayd walaalayaal waxaad u fiirsatiin balalo markay BBC-du wareysatay af Soomaaliga horta uu ku fiican yahay waa nin waa nin ka yimiday xagga Soomaaliga aan jecel oo shakhsiyaadka reer Djibouti intooda badiya af Soomaaliga uu kaga fiican yahay waxaan u leeyahay af Soomaaliga uu kaga fiican waxa laga yaabaa inuu af Soomaaliga luqad ahaan u bartay annagu inay dadkayga waalidadoodu ay bareen amba annagu aan barano annagu aan isbarnay maaha waa nin iskool u galay buu ahaa maaragtay alif waxmaala iyo alif iyo maaragtay shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban baa la kordhay shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban isagu iskool buu u galay mabruuq calayk laakiin marka ay diblomaasiyad noqotay markii la wareysanayay balalo wuxuu isku sameeyay wax luqadda Ingiriiska loo yaqaan contradiction leeyahay wuxuu yiri dalka Soomaaliya way madax bannaan tahay buu yiri dalka Soomaaliya way madax bannaan tahay laakiin u yar macnay dadka balalo waayay bar soo qorayaan u macnay balalo wuxuu yahay inta hadalka bilaabay balalo waa safiirka Djibouti ee Muqdisho fadhiya Soomaaliya u fadhiya maaha safiirka Khadraxayd maaha Hargeysa fadhiya ma sheegayo كاوا سفيرك خضر حيدوي ما سفير ما كاس سفيرك مقدشة فردية بلالو وانين عيسى وانين ريرجيدية سيدا وشاغا يبارة حامد وزيركي هوري وقفيها وسوكريي سوكري ما وراك راني يدلو وين يسوي يدلو وين ودلك يميدي لكن بريسك قعدت لقريني بريسك قعدت ولا سلو لقريني جبتوا اسكال عادي تاسل الله عادي وحاسوح والله لقد كانت عيسوي كي كبرين وبارتي اينا ساعدين ولا يساعدي جري اساعته بلالو wuxuu yiri haddana wuxuu yiri inuu nala socodsiiyo yay ahayd buu yiri wuxuu ka yiri wariyihii waad wala daawateen baan jecelahay
haddeer markaad bilaabaysay buu ka yidhi hadalka waxaad carabka ku taabatay soomaaliya waa dal madax bannaan waa runtiisa wariyuhu dalka soomaaliya waa madax bannaan tahay dal maanta weliba waxa weeyaan aad u laciifa oo maanta dhibi haysato laakiin waxyaalo badan oo dalalka soomaaliya dalalka badan ee jaarka u ogolaadeen farmaajo yaa jira ay weli dalka jabuuti u ogolaan walaalayaal xaqaha laga hadlo waxaa dhacday aabi axmed markuu muqdisho ugu tegey wuxuu farmaajo ka yidhi anigu xalay tore waxaan kula jiray telefon nin magacayga magacaabin buu yidhi laakiin wasaaradda arrimaha dibadda laygu xidhay u shaqayn jiray weliba safiirkii hore soomaaliyan raadinayay oday sheekhaala oo fadhiyo maaragtay canada ku noolaa telefoonkiisii baan waayey nin baa iga yidhi odaygu haddadu iska xanuunsan oday weyne uma malaynayaba inaad helaysid laakiin nin waxaa la ii dhiibay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ka soo shaqaynayay ninkaas wuxuu ii sheegay wuxuu yidhi aabi axmed markii uu ugu yimid muqdisho farmaajo wuxuu ka yidhi faragelinta aad maaragtay aad puntland iyo maaragtay dowladahaagii kaa horreeyey iyo maaragtay meesha iminka somaliland la magac baxday waqooyiga ay faragelinta ku hayaan ee marka ay madaxweynaha federaalku inii yimaado haddana aad u yeedhaysiin maamul goboleedyada maaragtay madaxda maamul goboleedyada naga daaya aabi axmed wuxuu yidhi maanta u dambaysa marka musabixi warqad buu u qoray taasi waa arrin jirta qofkii rabano taas uu sheegayna waa runtiisa waan arkay aniguba waan maqlay warqad buu u qoray aabi axmed inaan kula kulmaan doonaya buu ka yidhi aabi axmed wuxuu ka yidhi waxaa tahay buu ka yidhi madaxweyne maamul goboleed dowladihii horaanu mayhi buu ka yidhi ee aniga iga horreeyey madaxdii prime ministeradii etoobiya iga horreeyey ninkani farmaajo wuxuu u tegey ninka kenya madaxweynaha kenya ee la yidhahda kenyatana ballan wuxuu ugu qaaday inuu dhabarjebin ku samaynayn si ay soomaaliya usoo noqoto wuxuu u tegay madaxweyne ismaaciil cumar geele walaalkay markuu ka leeyahay is arkaya walaalkay way wada sheekayseen wuxuu ka yidhi madaxweyne arrin baad noo waday kolley telefoon baa soo galay markuu dadka telefoonku soo galo walaalayaal uu ka boodaa waana soo qabanaya maxamed cawaale dad badan oo iisoo waqti baan siinayaa waqti baan haystaa 2 saacadood baa maanta haystaa fikradda waad ka dhiibanaysiin imika 12 barkii ilaa kus raalaada ilaa 11 barka waad ka hadli karaysin dib baan bal maxamed cawaale soo qabanaya ya marka insha Allah ilaahu naastur maxamed accept gareey shakadan sii wadanayna insha Allah wax walibana madaamu maxamed wuxuu sheegayaa the night I don't know what happened walban ku celin marka walaalahay sii share gareeya videoga maxamed ku soo diray assalaamu calaykum walaalahay alla iga raal lahaado markaan arrin fiican subject fiican ka hadlay qolooyin baa maartay dagaal lagu soo waday waa iska caadi marka walaalayaal markuu farmaajo ay shacab maxamed mid baan kuu sheegay next time aan ku soo qabanayo anigu messagerigo dhawaan daadiya whatsapp waan daadiya wax waliba waan daadiya maadaama dagaalku badan wax waliba waan daadiya adiguna marka dambe soo galis sidaas samee marxaba musabbi xilad kale markuu ismaaciil umar geli farmaajo waxa uu tagay farmaajo madaxweyne farmaajo markuu u booqday dalka Djibouti uu u tagay wuxuu weydiistay wiiga yiri ninkaasi inuu dalka Djibouti waliba khaasaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu faragelinta uu ku hayo uu maartay waqooyiga uu maartay xitaa uu fahmaya faragelinta sida aan Soomaaliya u soo celino annaga wala hadlaynay faraha kala bax buu ka yiri Ismaaciil Cumar Geele uu ku qoslayba qasal buu dhaq buu yiri bogsoon marka taasi walaalayaal waxay keentay inuu farmaajo anisa ila tahay farmaajo inuu isaguna darihiisa qabsado wixii dalkiisa Soomaaliya waajib ku ah marka waxaad xasuusatiin xitaa oo mudan in farmaajo lagu hambaliyeeyo wadanka markii ay cimaaraadku iyo sacuudiga iswataa dalka cimaaraadka ee Dubai sacuudiga iswataa marka ay qatar dooneen cunaqabatayka ay ku sameeyaan farmaajo wuxuu ka yiri no annagu cid ma raacayno keenin netar baan naybkay
inaguna walaalahay inaguna cilaaqaadkay walaalahay baa tihiin dalka qatar rosia waa kii lagu qaniinay laakiin dowladda ismaaciil cumar geele maxay samaysay cimaaraadkii sacuudi arabiya raacday iiraan bay lagu diro ka bax laga yidhi haddaba dalka jabuuti dhibaatada maanta diblomaasiyada haysata walaalayaal taariikhdeeda dib hanu raacno wuxuu madaxweyne ismaaciil cumar geele daaqadda ka tuuray uu dhibaato weyn ay ka soo mudatay siyaasaddii uu xasan guuleed ka tegey kaadi siyaasadda uu xasan guuleed ka tegey waxay ahayd siyaasaddii loodhan jiray netarka neutrality dalka jabuuti netar bay ahaan jirtay waxyaalahaas taasina aad bay ugu faa'iidaysay dalka jabuutiyo soomaaliya oo dal weyn oo dal xoog la ahayd iyo etoobiya sidaasi leega yaa ku tartamaya oo dooni jirta inay qaataan labaduba sheegan jiray oo weliba xaqdarro ku sheeganaysa etoobiya weli hayla salaasa kaga soo qabo ilaa iyo mangista ala maryam markaa si ayna taasi ayna u dhibaataynin weliba ayna xitaa wixii la odhan jiray dagaalkii qabooba ama cold war ama lager forward taasuu madaxweyne xasan guuleed kaga badbaadiyey waddanadii communismka amba maaragtay doonaya raacsanaa yuu kaga badbaadiyey tii haddaba madaxweyne ismaaciil cumar geele daaqadda ka tuuray wuxuu doonay inuu ciyaaro rool ciyaaro inuu dalalka maaragtay uu siyaasad weyn ka ciyaaro maadaama ay soomaaliya waddanadu waxay haddaba siyaasad weyn ku ciyaaraan dhowr wax markay gaadho cishadii hore 6 qodob baan ka hadlay dad asxaabta ii sheego 4 baad sheegtay yidhi waxay ciyaaraan walaalayaal labada qodob kale haddaan inii sheego markaad horta quwad siyaasadeed aad leedahay waxaad dhista dhaqaalahaaga ciidankaaga dhista markaad quwad dhaqaale aad leedahay oo dalkaagu maaragtay shoomeernimadu amba shaqo la'aantu ay yar tahay baamushar badan oo buumiga sida dubay oo kale cimaaraadka sida singapore oo kale weliba singapore oo sidaa xitaa ma ciyaarto siyaasado ay kaasa ma ciyaarto neutralityga dalka jabuuti u wanaagsanayd ee qof kastaba cid kastaba la saaxiibaya dan ugu jirtana kana faa'iidaysan lahayd iiraan baa lagu daray oo xitaa u dhistay maaragtay baarlamanka waxaa lagu daray qatar waxyaalo badan uga qaban lahaa maantana dalkii ilaa dubay uu la ficiltabayey uu la ordayey uu garab ordayey waaga yagiibaa maantana xitaa maxkamada ku dhigay oo maanta maxaa haysataa shalay toole waxay xakumeen maxkamad ingiriiska ku taala oo arrimihii dubay iyo ka dhaxaysay jabuuti waxaa heshay dacwaddii dubay baa heshay oo la yidhi inigaa saxsan 330 xaq baad u leedihiin waxaasoo dhan waa siyaasadda haddaba ismaaciil cumar geele ismaaciil cumar geelena walaalaya waa laga xayuubiyey dalka haddaba sheekadan iminka warqadda lasoo qoray jabuuti soo qortay iyo cayda la caayayo farmaajo iyaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya walaalayaal khadraxayd iyo gruubka ay wadato yaa ka dambeeya cali cabdi iyo waxay weliba leeyihiin jabuuti somaliland ha aqoonsatay leeyihiin waxay oo dhan loo samaynayo oo la doonayo in la kala durkiyo oo la kala fogeeyo dadka soomaaliyeed oo weliba ay dalka jabuuti faragelin xun ay ku hayso oo dagaalka qabiileed ay iyo bareerka ay nimankani jeegaantu ay dagaal ku qaadeen dhulka maaragtay dhulbahantaha ilaahay uu dejiyey ay leeyihiin ingiriiskii baa nooga tegay war bal ilaahay ma laga cabsanayaa yuu weliba mataqaanaa dowladda ismaaciil cumar geele raashin gaaskii xoolo lacag hub marka faragelinta marka ay dalka soomaaliya ay ku hayaan shacabka reer jabuuti kuwa durmaanka loo tumaya mayna arkayn horta shacabka reer jabuuti qaar waxaa jira waa lasoo karaystaa si oday waalan oo meelaha jooga oo mataqaanaa cali aareeyo layidhaha isagoo gaas baa lagu shubtaa oo kaasi odaygaasi faa'iido ma leh waxaad aragtaan maaragtay ninkii mahad saylac lagu haysteed madaxweynaha ka ahaa wuxuu iga yidhi mar baan jabuuti kula kulma wuxuu iga yidhi maadna taageertid baan ka yidhi dhulkan waa dhulkeennii war adeera aniga maaragtay wixii qofkii afka wax ii qooyo maraan u hadlaa buu iga yidhi $2,000 ma haysaa yarow haddii kale igala tag lacnacdan $2,000 baad ii dhiibaysaa waan hadlayaa buu ka yidhi marka horta ninkaasi eeg ciisuhuna way siqaaniinoo
anigu ma sii dhex galgalayo ciisuuna way shaqaaniinoo marka ay dhacdo waxyaalahaas oo kalea ciisuu dadka way ka qaban jireen iminka waktiga akhiri zamanka ciise isaga isa soo dhisaya waa kaa maanta alxamdulilah city ay naga farxisay ay danaheegii ay qabsanayso mar waxa iman doonta ciisuhu sidii hore oo dhan u soo noqdo oo la qabto ka waasho ciisaha ka waasha annagu naga waashe ka iimaan beela ka doqonka waa laga ciisuhu way iska qaban jireen maanta lama qaban karo inta badyaana waxay u badan yihiin reero la garanaya uma sii galgalayo waa la isyaqaanaa iyo u badan yihiin oo qofku mataqaanaa markuu hadlayo uu wax qasayo uu wax laaqayo iyo huguru orday annagu waan isgaranaynaa laakiin waktigiiba iman doonta ay ciisuhu ay iska qaban doonaan in la kiraysto qof maarata lagu shaqaysto oo dadkiisa dadka shacabka badan ciisaha qaranka ka badan uu dhabarka ka jebiyo maaha dalka jabuuti bay noqota haddaba dalka jabuuti walaalayaa shacabka reer jabuuti haddaad doonaysa inaad wax u qabatiin badbaadiya ismaaciil cumar geeleed iminka durbaanka u tumaysin dalka maba joogaba waxana isagu maba samaynayo waxaan anu qabaa uu si cad iigu sheegay nin reer jabuuti oo diblomaada ah oo isaguna dalka jabuuti jooga maanta waa wallaahi oo bilaahi wuxuu iga yidhi waxaan hubaa buuhi kugu dhaaranayaa buuhi inuu ismaaciil cumar geele waxaan uu samaynayn buuhi marka waxaas islaamtu ka hor qaaday kas ay samayto u baxsadaa wuu isqar waa kii waagiiba noo sheegay yarkii yaraaye maarata ninkii wuxuu ahaa nin yar maahe ina jahbed way soo soctaa isqabee alla doqonsano soo soctaa baxsada lahaa waa kii noo sheegay berigii ay maaragtay u diiday aqalka inuu seexdo prime ministerkii hore dileta aqalkii waa kii cadhooday ila cartu yimido 4 cisho isku soo xidhay iminka ismaaciil cumar geele 4 cisho aqal isku soo xidhay iyo 5 cisho marka ay waxay qasto dee walaalayaal haddaad dalkiina aad ka naxaysiin dalkiina badbaadiya dalku wallaahi oo bilaahi maaha ciyaar dalkii jabuuti niman maaragtay aan dalka ka naxayn baa gacanta ku dhigay ciise iyo cafartii dhikraa laga saaray walaalayaal annagu ninka aniga ila soo hadla ii sheegay iga yidhi in warqadda lagu qoray majlis laga soo qoray oo loo keeno la imprimeeye amba la printigareeye oo balalo loo dhiibo akhri la yidhi waniyahow annagu waan cabsoonaynaa buhi ma hadli karno inigaana cabsoonayn walaalahayow dalkiina u hadla buu yidhi dalkii waa la wareejiyey dalkii waxaa gacanta ku dhigay buu yidhi niman aan dalka ka naxayn niman maaragtay magaca isaaqa wata oo isaaqan metelin laakiin xumaan cali cabdiga aad way iska jirtaa dhibaatada maxamed next time wax wali oo dhan iska daadi soco maxamed su'aal baa la soo qoron doona inuu weydiiyo bal ku soo waka dal wuxuu ku leeyahay waxa lagu leeyahay cali cabdi wuxuu ku dhaartay leeyahay haddii tolkay loo qoonsan waayo wuxuu sheegayaa nimanka maaragtay maamul beeleedka Soomaaliland ma la baxday annaguna tanaan dal kala diraynaa buu Djibouti sheegaya shacabka reer Djibouti walaalayaal waliba ciise iyo cafarta la hadlaya waxa waliba suuqa inii soo galina qabiil baa la wadaay oo Djiboutianité waa munaafiqiin wiilka caadgooga maaragtay waxyaalaha ya maxmed galo akaar dhax galo in yar maririsi shixim caadgo wuxuu ku shaqaystaa ku doqon oo ciise oo maxamuuda la yiraahdo maxamuuda balfoor ciise waa nin ciise balfoor xeerka ugu horeeya qodobka ugu horeeya ciise waa wada ciise nina caarama dheer ee dhalinyarta barbaartu ku kacday ee meel kasta kaga kacday sharafteedii iyo maamuusteedii shixim caadgo kani doqonka ay ciise ayuu soo dhibaa ciise waa wada ciise nina caarama dheer kii isaaq xoolihiisii intuu qaato ka baxsaday shixim caadgona waa intuu nagib u yeerayo shixim caadgo doqonka ciise dariiqa lagaga baxsani bal arintaas sida warka ka xunaya doqonka ay ciise balfoor maxamuud balfoor horta sidaad sheegtay horta balfoor de waa adiga arkay waa iska doqon waayo hadduu doqon ahayn wiilkaas sidaad sheegtay waa adigu maaragtay qolooyinkii maaragtay balfoor jiifa u eg isagu inuu bilaa nafaqadiya kuwa kale way naxnaxeen marka ay arrimahan ay galeen waayo wiilka yare isaaqee wasiirka tacliinta minister de l'education wax siyaa layga yidhi weliba khaas ahaan nimankaa weerar ka yidhi nimankaa wayna dhibeen nimankaa weerara shixib caargo iyo isagu horta annaga way nagu daalayaan
oo iyagu koontaraa la soo waagii buu aniga cali cabdi bay koontaraa u doonteen waagii ay odhan jireen iyaa maaragtay iyaa raggaa naga celinaya iyaa hadlayo raggaa caayaya oo iyaa noo caayaya ay odhan jireen annaga way nagu daalayaan annagu qarankay dalka jabuuti ay maaragtay canfartiyo ciisuhu maanta ay ku dulman yihiin dadkii waxa way ka weyntahay saaqoo qura maaha waa kii cishii dhawata xitaa kulaaba kii gadabuursiya kuu soo galay annagu gadabuursiya haddaan nahay baad casha haddaan nahay waa kii kulahaa annagu maaragtay ismaaciil cumar annaga dalka la wadno oo la burburina kulahaa carabtii sidaasi leeg ciddii runta ka leexanaysa ee iska dhigaya maaragtay oo nacam intellectual ha lagu yidhaahdo baladii badhana anu waxbay dhibtaba markaa walaal adoo iga raalayo waad igu diiday markaad aqoonyahani leedahay maba jecli baanu titleka I don't like it dadka anu waxaan jecelahay qof walbuu ilaahay garaad siiyey waa waxaad baratay dee magacan kugu magacaabay ma oo waxaad baratay maxamed taa faham waad mahadsan tahay haddana iminka waxa baan kuu sheegayaa dhalinyar baa ii soo qoraa chef baa ii soo qoraan chef ay igu yeedhinaan ka idhaa walaal iga daa baan ka idhaa chef ma ihi maya waa titarun waxayna fahansanayn dhaqanka jabuuti chef xaguu ka yimid ereygaasi dalkii jabuuti waxaa la soo celiyey walaalayaal waxaa la soo celiyey waagii guumaysiga waxay ka dhigan tahay chef gaaladaa ka odhan jirtay wi chef iga dheh sida maraykanka madowga loogu qasbi jiray inay yidhaahdiin yes master slavekii ilaa waagii kotonadii ninka madow hadduu ninka cad yes sir yes master ka odhan waayo weliba waa inaad sidaa u raacisaa dhar baaxu ku dhaji jiray jabuuti faransiisku guumaysigu wuxuu la yimideen wi chef waxayd waa titar ninka cad lagu odhan jiray waa ka gaalkii geriraaye qawda maqashi waa markay xuduudka ay dhigayeen maaragtay tareenka xadiidka markay dhigayeen ilaa etoobiya ay dhigayeen dadka reer jabuuti weliba khaasaan ciisiyo markuu gaalku soo raray wi chef waa ka gaalkii geriraaye qawda maqashi bay odhan jireen waayo iyagu mishaaradooda saw qaataan iskaga marxabaysibeen chefkuna xaggaa buu ka yimid dee waxaan jecelahay dhalinyarta reer jabuuti waxaan jecelahay ereygaa walaalayaal iska daaya ereygaas waa arrin maaragtay guumaysigu noo keenay ereygaas waa erey la doonaya in lagugu ricyadeeyo markaad qof chef aad leedahay nacam master baad tay ka dhigatay masterkii chefkaygii aniga maaragtay noloshaydii maamulayay taasaan uga diidaa oon idhaahda iga daaya hayga odhan chef haygu yeedhina marka adoo iga raalaya usoo noqdo arrinkii farmaajo waxaan kaga baxayaa madaxweyne farmaajo dalkii soomaaliya madaxweynaha maanta ka ah walaalayaal intay jabuuti caawin lahayd madaxweyne farmaajo wuxuu sida runta uu ka noqday muqdisho mayor buu ka yahay maanta mayor buu ka yahay maxaa ugu wacan waddanadii ilaa ee jaarka ugu sokeeyey yaa dalkii ilaaba gabalay wala samaysteen iyagii baa garab rooraya iyaguna ma ixtiraamsano dastuurka idile soomaaliya ee laleeyahay maanta waa qalba qoraal laleeyahay lacag ma dhanno marka soomaaliya wuxuu u baahan yahay markaa farmaajo inuu dowladaha jaarka uu ka helo kalsooni ay faragelinta ka daayaan eritrea faragelin bay ku haysay etoobiya faragelin bay ku haysay kenya faragelin bay ku haysay jabuutina faragelin bay ku haysaa waa run jabuuti wax weyn ba u qabatay soomaaliya waa shirkii dowladdii cartaan haddana dhabarkay ka jebinaysaa waxa tarista waxa ma tarisa imikana dhabarkay ka jebinaysaa marka waxaan dowladda jabuuti kula talinaynaa ismaaciil cumar geelle hadduu wax yar ku hadhay isagu iminka dalka ka taliyo mudane madaxweyne faraha kala bax soomaaliya mudane madaxweyne faraha kala bax bilaa caleeg dalka soomaaliya ha soo noqdo faraha kala bax waqooyiga nimanka waqooyiga weliba maaragtay aad u soo diraysid maxamed jaamac isagoo kololeelo dareeskiisiita adigoona muqdisho la hadlin inagoo maad jeclaysan wuxuu sameeyey farmaajo ka sameeyey casmara iyaguna say ugu xumaynayaan kama fikiraan soomaali bay kala jejebinayaan kelmaduu yidhi farmaajo iyo dowladdii janneed kacday waxaa kii doqonka ee jareerka u ekaayay ee maraykanka joogay ee badda raxaanka ahaa kaana wuxuu ka hadlayay united nationka
de waa shaqadiisa isagu farmaajo buu weerarin eritrea ka hadlayay waxaan leeyahay shacabka reer Djibouti eritrea dhul hadday naga haysato walaalayaal 20 sano iyo dalka Djibouti haysatay inay dhulkayga soo ceshato 20 ka sano 9 markay galeen 10 sano noqonaysaa 2008 Djibouti aan joogay 2008 ilaa iminka dalka Djibouti dagaal cad oo kumay qaadin dagaal diblomaasiyada xoog leh kuma qaadin waxay dabada isaga xidhay dalkii Ethiopia cunaqabatayka yes waa lagu qabtay cunaqabataykaasi Ethiopia idilba waxay tiray Abiy Ahmed ha laga qaaday tiray dawladda Djibouti Ethiopia maxay cilaaqaadka uga goosan weyday ama ay u tusi weyday inay ka xun tahay waxa laga yaabaa inay diblomaasiyadii hoose ay sameynayso Djibouti ay si yaroo kale ula xisaabtamayso dalka Ethiopia laakiin maanta inay muqdisho saa ula xisaabtamaan because way quursanayaan way yaraysanayaan waxay leeyihiin maanta way quursanayaan inay quursadaanna maaha walaalka markuu jiifo inaad garab siisid way taageertid way shalay toona annagaba iyagana taageeray calanka Djibouti maanta ma jireen cidii ogol ama diid ama doon ninka Ibrahim Cigaal la yiraahdo Ibrahim Xaaji Cigaal 1967 kii markuu prime minister noqday ninkii wuxuu ahaa digool yiri Djibouti annagu mar rabnay cirka la gal haddaad doonaysiin war cadna Umar Cilmi Khayre cajaladiisa daawada wuxuuba naga yiri buu yiri FRCST haddii aad wax ka samaysiin Djibouti gaalka inii dhiibaynaa ninkii wuxuu ahaa ninkii soo celiyay dalka Djibouti inuu u hadlo Maxamed Siyaad Barruha nin daarood ahaa nin mareexaan ahaa oo ciidana oo qarankii Soomaaliyeed soo celiyay karaamadeedii markii dambe isaguna ha burburiyo waayo qof markuu ku raago powerka dhibaatadaas oo keena ninka buu ahaa ninkii FRCST soo celiyay karaamadeedii jaabadii Djibouti ninka buu ahaa ninka wax wala baray maxaa tiri iyo General Daoud iyo ninkii hawiyay abgalka taasi dawladdu ugu horeysay ahayd barigu aadan cadde madaxweyne ka ahaa waxa bedel eeg dawladdii aadan cadde wuxuu wadanka madaxweyne ka noqday 60kii ilaa 760kii waa laga qaaday electionkii uu iska baxay isagu waxa qabsaday madaxweyne noqday oo badiyay Cabdirashiid Cali Sharmaake wuxuu prime minister ka dhigtay sida iminka maaratay khayro kale wuxuu ka dhigtay Maxamed Ibrahim Cigaal siyaasad wuxuu ula tagay Cabdirashiid ahayd siyaasadda arrimaha dibadda inay faraha ka qaadaan Kenya waa ka Uganda lagu heshiisiyay Kenya iyaga oo qodbad buu ka jeedinaya 760kii inay Kenya NFD faraha ka qaaday Djibouti sidaas leeg laakiin markay ciidanku ay Soomaalidu ay afgambiga ku qabsadeen 1969kii October 22kii Maxamed Siyaad Barre dib u soo celiyay wax weyn qayb weyn libaaxda ka qaatay calanka Djibouti la waliba waxay Djibouti Soomaaliya u sameyn jirtay safiirkii Soomaaliya Canada joogaani afkiisa iga sheegay waayo jaraa'idkan doonayaan ku waraysto la kulmay wuxuu iga yiri anu markaa New York baan joogi jiray buu yiri telefoon baa soo galaa soo xagga UN tan joogi jiray buu yiri safiirkay Soomaaliya ee Canada u fadhin jiray waa oday sheekhaasha wuxuu iga yiri xafiisadeedan u furi jirnay buu gobinimo doonkii reer Djibouti buu yiri xasan guuleed iyo raggiisii buu yiri safaarad kasta oo Soomaaliya oo adduunyada ku taala gobinimo doonkii reer Djibouti xafiisa uga furnaa buu yiri mana sheegi jirin adduunyadana uma sheegi jirin buu yiri waan qarin jirnay marka taa xagga baan kaga baxayaa waxaan leeyahay shucuurta dadka reer Djiboutina waxaan leeyahay kubadda dhulka dhiga sidaad moodaysiin maaha rag baa inagu shaqaysanaya oo islaantii maartay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyadu maartay ay green light ka siinaysa dalkiina doonay inay baabi'iyaan in warqad majlis lagu soo qoro ina maartay lala yimaado maahayn waxay ahayd in maartay safiirka Soomaaliya ee Djibouti jooga wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti u yeeray oo ismacneeyo yiraahdo farmaajana ka jawaabay ahayd si hoosaaro diblomaasiyad loo xaliyay laakiin inta la sameeyay barbaartaan u galaynaa wax su'aalo oo qabtid ninkii calina uu na sugaya baan u malaynayaa horta barbaarta shirka ka socda
daradhabe aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sharafteedii bay soo celiyeen karaamadeedii bay soo celiyeen walaalahay shaqada wadaan leenahay laakiin odayada waaweyn ee nala shaqaynaya iska ilaaliya ciise odayada barbaarta waxaa laleeyahay garabka ku haya shir markay galayaan waa inaad la socotiin waayo jabuuti xitaa iminkay nagu daba jirta oo lacag bixinaysa siday hadheer waagii hore dhabar jibinta inagu sameeyeen ee jigjiga loola tegay inay nagu sameeyeen odayadaas iska ilaaliya odayadu waa adeeradeen laakiin odaygu markuu da' gaadho haddee toole kharash yar baa u daran inigana waxa inii daran maaragtay ayahiina dambe inigaa dalka u dhalinyara sidii tii shalayna nagu soo celin iskana ilaaliya barbaarta dulmidiid iska daaya waxaas barbaarta city baateen garanadayna nii soo sameeyey ha isbahdilina walaalahayow inigaa dal meeshan xoreeyey inigaa cabdi ilay gilgilay qof walba waa inuu ku kal hirsug markaa maxamed kolley telefoon soo galaya qof walba inuu ku kalsoon waan kaaga baxay balwad raallahow aad iyo aad maxamed iminkaan galaya in yarun baan ka odhanayaa arrinta soomaaliya iyo jabuuti in yar baan ka odhanaya anigu kusoo gabagabaynayaa shakhsi ahaanteeda in yar arrinta soomaaliya iyo jabuuti waxaan u sheegaya dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan min korea koonfurta annagu soomaalidu waa walaalihiin shicibka reer jabuutina waa walaalihiin siyaasadda diblomaasiyaddana aqooyaan maxamed cawaale si qurux badan buu u dhigay taa dhinaca baan kaga baxayaa midnimada soomaaliya milooyo cadeyla mayras camboni waa soomaaliya caasimadda soomaaliya muqdisho talabaad aad iyo aad iminkan wacayaa isu okay markaan qabto bal inaad malqaysid baan eegaya iminku wareerinaya iminkana muu qaban lahay may u dhacayaa isu u dhacayaa isu oo saakiin intoolay wareerinay maad malqaysaa maxamed cawaale si fiican maad u malqaysaa assalaamu calaykum cali waan ku maqlaynaa cali adu mana maqlaysaa adu mana maqlaysaa caliow caliow mana maqlaysaa assalaamu calaykum ha maxmed soco cali waxaad nooga warataa shirka lagu qabtay dirdhaba lagu qabtay ay barbaarta city ay hormood ka tahay iyo odayadeenii siday u socotaa xaaladdu maxaa la isla gaadhay wax maaragtay maanta wax la isla gaadhay ay soomaalida kale ku heshiiyeen maxay tahay oo maxaa ku soo kordhay ha u dhamaysta soco shirku shalay buu ayuu furmay si wanaagsan bay barbaartu yani si ay 200% ay u fureen si la filayno weliba kasii ballaaran bay fureen waxaa la wixii dad marti oo ay aad bay u qushuuceen si wanaagsan bay u socdaa maantana u socdaa go-aankiisana berberri wixii laga soo gaaro beri subaxaynu gabagabooban baan ayaan u malaynaynaa marka wixii de ka soo baxay markaasaan maasha allah waad ku mahadsantahay cali waa runtaada bal noo soo hubi la soco oo adiga wariyahayagee nooga soo warramaya magaalada dirdhabe ninkaasi waa cali maraykan oo wuxuu degan yahay dalka maraykanka waa qurba joogtii california magaalada maaragtay santa cruz waa qurba joogta ciise ee gurmadka u tegtay ee dadkooga wax la qabanaya marka cali aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay berri toolana bal wixii lagu soo gebagabeeyey wixii laysla raacayna waan kaa waraysanaynaa toddobaadka dambe hadduu ilaah yidhaha haddaaban soo gelinba horteedba jimcaha horteedba hadduu ilaah yidhaha correction aan kugu sameeye magaalada waa san francisco san francisco
Chris Maya wa San Francisco. way dhan tahay مرحبا ورطاده وايه way dhan tahay Assalamu alaikum wa rahmatullah. aad iyo aad waad mahadsan tahay aad iyo aad waad mahadsan tahay ما ورطيسه وسان فرانسيسكو wariyaheenna jooga wariyaheenna dirdhaba jooga waa ka kolley laga yaaba inaan soo galno axadda maadaama beritoole shirka lasoo gabagabeynayo axadda waa inaan soo galno oo dee dadka u maconayno si qurux badan oo sharaf iyo karaama ku jirto inamo badan ba maxmed ii soo qoray oo kaaga mahad celinaya dadaalkan muddo aad badan aad ku soo jirtay kaaga mahad celinaya oo dirdhaba jooga maadaama aanu telefoonadu igu badan yihiin telefoonada kuma fiican yihin adaa igaga fiican oo dadka ka qabta maadaama anigu busy aan oo meel shaqo aan joogo wayna kuu soo ducaynayeen wayna kuu mahad celinayeen dadaalkaa bilowday 2005 ilaa maaya imika waa kaa barbaarta dhalay waa kuwa ciisu isku yimaadeen allaha ku cuseeyo karaamadna waxaad ku leedahay beelweynta ciise bay kaa yidhaan anigana way soo mahad celiyeen adiga sida si aad ay kugu soo mahad celinayeen aniguna waxaan ku leeyahay qofku hadduu ilaahay u mahad celin bilaadanku uma mahad celiyo maqsoon tahay aniguna karadiigaatu lamida waan ku siinaya saaxiibow intaan dadku waa aad baad walaalahay aad u mahadsantihiin intaan anigu waxa u dadaalayo oo dhan wax kale ma ahayn qofku dadkiisu wax ku yahay qofku markuu dadkiisu hadday jiifaan dadkiisu haddii la duleeyo dadkiisa haddii la guumaysto waxba maaha haba yaraatee walaalayaal inigana waxaan nii rajaynayaa qayrkiinba waa kuwa oromadu dhulkoogii xoraystay dhulkiina cidna ha u daba joogsanina ilaahay baa inigu dejiyey awowyaashiin cuduud bay ku badbaadin jireen dhulkooga dhulkan annagu ku noolnahay waa laaluwaada jungle buu faransiisku yidhaah dad violence ah oo waxaan aan la noolnahay xawayaanka aanan dhaamin oo xeer lahayn oonan lahayn eegsay dadka u gorgowracayaan waa iniga arkaya marka waxaan ilaahay u foojignaada dalkiinala ilaalsada dhulkiinala ilaalsada cidna ha u daba joogsin wax loo dhinto oo lagu dhinto lagu shiido waxa ugu weyn horta maaragtay ilaahay diintiisa oo laa ilaaha illa allah maxamed rasuulallah adigoo ah aad u dhibatid wax ugu weyn ma jiro waxa kalaa ka sokeeya uu ilaahay xitaa ogol yahay waa dhulkaaga reerkaaga iyo maalkaaga oo difaacdid marka aad iyo aad baad u mahadsantihin walaalayaal ani intaan ba iga ahayd cishooyinkana sida ina yar oo baby oo 6 bilood aan u seexdaa aad baad iga farxiseen jabuutina sidaas si leeg waan xorayn doonaa saylac lugayaysteen waan xorayn doonaa waa run wallahi sida ina ilmo yar oo 6 bilood aan u seexdaa aniga fresh marka 6 bilood saylac lugayaysteenna dhalinyarta soo kacaysaa sugaynaa kuwa iminka maaragtay waan ku daalay ilaahay iyagana ha soo atoobad keenaan annagu cid xumeeya ma lihin qabiil xumeeya ma lihin annagu dalka soomaaliyana waan aqoonsanayo saylac lugaya state of somalia weeye annagu dowladda ismaaciil cumar gele 100 jeer baan weydiisanoo nidhi saylac lugaya state annagu waan aqoonsanahay soomaaliyana aqoonsanahay ka daa faraha iyo faragelinta walaalayaal waad mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa dadka kalena waxay rabaan dad badan baa raba inay su'aalo weydiiyaan ay soo galaan ay ka hadlaan iyagaanan uga baxaya hadhow haddaan su'aalan qaban waan kugu soo noqona iga qabo walaalkayow barnaamijkana waan daawanayaa si fiican baan ula soconaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciddii su'aal qabtana hadday iminka ay jirtaan uga jawaabayna waad weydiin kartaa waan uga jawaabi karaa ka kale iga soo wac nabadiid iga soo wac nabadiid cumar كريم ولا لي سؤال لدو اني فرين تابي غوش ويلكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته magacaaga halka joogti magacaygu waxaa lahaa Akram hay waxaa jooga magaalada Indonesia hay barnaamijka ma la socotay aad u weyn hay maxaa su'aal qabta niyo hal su'aal bas oo kaliya qabay su'aashaas oo ah walaalayga Djibouti waa taageersanahay waxyaabo fara badan way noo qabteen aniga from Muqdisho ahay Muqdisho ka soo jeeda su'aasha madaxweyne Farmaajo markuu ilitariya tagay
wuxuu ka hadlay cunaqabateynta laga qaaday hubka ah cunaqabateynta elitari markii la saarayena dee dalka jabuuti oo keliya ma aysa saarin oo waxaa ka mid ahaa madaxweyne sheekh shariif xilligaas madaxweyne waddanka ka ahaa oo ya oo cunaqabateynta wax ka saa ku soco su-aasha qabo madaxweyne farmaajo inuu maanta horta arrintaas ka hadlo aniga iyo inta ila fikir ah horta ma qabin inuu maanta cunaqabateynta laga qaado dalka elitari oo dhaho isagoo u daneyneynin ama jabuuti ama meel kaleeto elitari waxaa ognahay al-shabaab hubka ka soo galo dalka soomaaliya al-shabaab hubka la siiyo waxay soo martaa elitaria markuu sheekh shariif cunaqabateyntaas ka qayb qaadanayene wuxuu ku qabtay markab sidiisa ah oo kaamil ah oo hub ah oo al-shabaab u socdo marka dowladda jabuuti su-aasha aqabaa waxay tahay haddii xitaa ereygaas uu dhahay inkastoo anaga aana ku qanacsanayn haddana maxay tahay cilada jirto ama dhibaatada ereygaas uu keeni karo elitaria waa dal waa maxaa la dhahaa cunaqabateyntana qaramada midoobaa saartay ma ahan wuxuu farmaajo hadduu dhaho looga qaadayo ama hadduu dhaho farmaajo loo saarayo waa wax international community ka wada dhexeeyo anaaba kaaga jawaabi su-aasha waxa weeyaan ma dhamaysatay ha su-aasha waxa weeyaan jabuuti iyo elitaria xuduudaha jira meel la yidhaha ras damera waxaa kusoo durugtay ras damera dowladda elitaria kusoo durugtay oo qabsatay marka ismaaciil cumar geli iyo dowladdu nacam waxay ka baqayaan haddii laga qaado cunaqabateynka hubka inay dagaal inay dowladda jabuuti ay kusoo qaado elitaria unbuu ka baqayaa wuxuu farmaajo hadduu yidhaaho iyo hadduu odhan wax dee annaka dhibaato noo keeni karaysa ma jiro united nation ka saartay united nationka unbaa qaraarka qaadan karaysa farmaajo iska hadli karaya sax ha may farmaajo waa madaxweyne xur ah oo dalkiisa xur u ah wuxuu isaga jecel yahuuna samayn karaa dagaalkii 2009 oo dhacay waa waxa wada ognahay taariikhda wixii ku jirto waa dagaalkii elitari iyo jabuuti wax la wada ogyahay waay laakiin hadda waqti xaadirkan caalamkan maanta la joogo 2019 kala marooyo in dal kale uu weeraro wax impossible ah waa waqti xaadirkan caalamka hadda uu ka tagay in dagaal qori la isku qaato ama la isxabadeeyo maanta aniga waxa ku jiifaaca haddii elitaria xitaa cunaqabateyntaas laga qaado in no one oo maanta elitaria awood aysan u yeelan karin inay soo weerarto dalka jabuuti leannahu de caalamka hadda wuxuu marooyaa heer maskaxda la iskala dagaalamo ma marooyo heer qori la isku qaato mideeda labaad maxaa la dhahaa dadkan madaxweyneyaasha caynaayo ama ha noqdo madaxweynaha jabuuti dadka aflagaadeynaayo ama ha noqdo madaxweynaha farmaajo dadka aflagaadeynaayo midaas waxaa ka dhihi lahaa dadku inaysan madaxweyneyaasha aflagaadeynin madaxweynuhu fikir uu qaatay siduu dalkiisa ku horumarin lahaa whatever wadankuu doono madaxweynaha u ahaado madaxweynuhu dib naguma hayso shicibka walaalaha soomaaliya iyo jabuuti inaa la kala dheereeyo unbaa muhiima qofku hadduu dhinacan soo fadhiisto amba anigoo kale amba madaxweynehoo kale barhna way ku ammaanayaan barhna way ku nacayaan taa la iskuma haysto qofka isaga meesha oo kursiga u qabsaday amba hala amaana amba hala dadka walaalaha ee reer jabuuti ee reer soomaaliya ee dhiig midaa tale inaa la kala dheereeyo umbaan anaku diidana waxan waa siyaasad diblomaasiyada saaxiib iina soo gabagabay dad badan baa laanka igu jiray adigoo raalliya saaxiib okay aad u mahadsan tahay inta jaaniska isiisay anigu inta kaliya aan rabay inaan dadku u sheego jaaniskan uga faa'iideysto intaasay ahayd in maxaa la dhahaa madaxweyneyaasha aana toos director loo aflagaadeynin aniga walaalaha jabuuti waan jeclahay waa dad walaalahayga ah waxay qabteen waa waxaa ognahay waa wax muuqdo wax la dafiri kara ma ahan waxaan annaga iyaga u qabanayna waa waxaa la dafiri karin taariikhdu mar walbeet way qoran tahay waa wax qoran soo walaalaha jabuuti aadaa uga xunnahay in madaxweyne hadalkaas uu dhaho balse madaxweynuhu target kale uu ka leeyahay targetkuu ka leeyahay waana arki doonaaye madaxweyneyaasha aflagaadada halaga daa intaasa kusoo gabagabeynaa aadaan u mahadsantaa walaalkay alaykum salaam waraxma aad walaalahay waan soo qabanayaa aad baan nii soo qabanayaa reer soomaaliyana waan u baahanay no answer buu kana sheegayaa aad iyo aad baahannahay soo gala su-aalo waxaad qabtiin barnaamijka intii dhegeysanaysa waan u baahanahay soo dhawaada
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو ألو saaxiib magacaaga iyo halkaad joogtid magacaaga iyo halkaad joogtid iyo barnaamijka haddaad la socotay waxaad su-aal qabtid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي خضر أيام ليلة waxaan joogaa Djibouti. سؤال ما قبو لكن هذا الذي ليس في درسني يعني إنه درس الآن ربع. hay soco. مرة ويد بارك وسط قد البضي عشاء كجري نسيب وحصل برا بحي مركان ركادي وسؤال سبتي هذه أول ما سمتي أدبن كسر ويد waxa inta ay dheer waxaan ilaahdaa rabay horta khilaafkan soo kala dhex galay Djibouti iyo Eritrea Djibouti maxay yahay Soomaaliya waxaan leeyahay maaha wax labada wadan labada shicib kala goynay siyaasiyan ah political ah laakiin Djiboutina xaq bay u leedahay halkii ay Soomaali ka filaysay in la garab maray bay dareentay warun ahaana maaha Soomaaliya iyo Djibouti wadanada kale way iska dhow yihiin way iska xigaan inta ay isla socdaan wad ogtiin de waxa la filayay ay Djibouti filayso wuxuu ahaa iska daa inuu dhahay Eritrea ka qaaday una qabataynta oo loo saaray Djibouti in Eritrea al-shabaab bay ku maxayday maalgelisaa ay hubsiisan Soomaaliya Djibouti way weerartay iyadoo taa loo saaray handana أو يسقى إلى إمك kaago-ay saaxiib raiisulka Djibouti saaba u dhib badan tahay raallow saaxiib raallow saaxiib kaago-ay raallow walaalayaal waan sugaynaa soo dhawaada siiba dadka Soomaaliyeed ee kasoo jeeda Muqdisho soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada boqorkaan u diray boqorka hay assalaamu calaykum. السلام عليكم. عليكم السلام بقرك مقع ماشي جوتي ده مقعاga صاحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمعة مبارك حلقة جوتي ده مقعاga. إمام مغشيد صاحب. أمر ده إلهي. soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada qadar saaxiib raallahow aniga maaha cuntadiina waad dhamaysatay sidaad ii sheegtay aniga maaha sida kale saaxiib waa khadka walaalahayow soo dhawaada waan ni sugayaa uu nii furan yahay soo dhawaada appel moi cadaaladiid de waxaad samaysaa live ba soo galo ka bax markaad ka baxdid ee live-kayga soo gashid telefoonkaagu sidaa waa inuu noqdo horizontal markaad soo galaysaa live-ka waad arkaysaa sidan hadduu yahay ma noqonaysid soo dirta waan ni sugayaa soo dirta walaalahayo soo dirta waan ni sugayaa haddaad doontiin waxaad iga soo wici karaysiin facebooka nabadiid cumar messageriga waad iga soo wici karaysiin arrimo ka badan waa inaan falanqeyno walaalaheena Soomaaliyeed mar waliba qalbigayga ku taaliin mar waliba waan naga walwalnaa haddaan reer Djibouti nahay aad baan ni jecel lahay marna ma jecelnin inaan kala jijibino Soomaaliya meeshan maamul beeleedka la magac baxday Somaliland insha Allah muddo gaaban ilaahay hadduu naga aqbalo calanka buluuga ka taagan calanka buluuga annako Djibouti oo dawladda oo calan gaar ah leh oo ciisa sharaf bay noo tahay inaan aragno calanka buluuga waa midnimadayda Soomaali baan ahay wiil Soomaali baan ahay anigu waa midnimadayda calanka buluuga aad soo qabanaya Maxamed Yarsug dad badan baa isdaba taagan بركات بكرسين شركة وكالة بكرسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلقة جوتي مقعة لبعض برنامج جيبوتي يا صوماليا أما شركة يرسو أما شركة در دبي لبعض أبكار بكرسين صعب. يا. كاغو
muujani bal magacaagii halkaa joogto sheeg ya وأبكر waan ku malqay si fiican dadku ma malqayaan hadalkaaga baraad رزوق عنه رزوق عنه hay inaad rizooga xuna insha Allah bal mar kale ku soo qaban dad badan ballaanka igu jiray si fiican wallahi kuma malqan si fiican kuma malqayo si fiican kuma malqayo okay waan u baahanahay Soomaalidu inay soo qabsato walaalaha iyo kaadishin okay dad badan ma arkayo aqoon Maxamed Awaana soo qaban saacadana waxay hadhay 5 iyo 10 minute bay hadhay okay Mustafa who's Mustafa okay Maxamed connect buu leeyahay weli ma soo bixin السلام عليكم السلام عليكم يقرا الله وردق دقا hay صح ما دي مقليسا وردق دقا نقول سو نقد درب لا يغلا سو هدلay hay oo la yiri dadka ciisa meel joogan ba u sheeg ay shacab waxa soo weeraray ciidankii Cabdi Ilay cishooyinka weerarku ay maartay oo ilaa maartay ay saddex gaari oo waaweyn ay hub culusna wataan waa ciidankii Cabdi Ilay Ali Yusuf qolada leeyahay laftiisa jahbadiisii weeyaan imika gurbad bay doonteen ciisi waa in loo gurmadaa meel alla meel ay joogaanba waayo waxay diidayeen inay tagaan shirka Dirdhabe imika magaaladii waa ciidankii Etoobiyaanka ka saareed hadeer dib bay xal ugu soo noqdeen baa la xalkooga markay ahayd habeennimadii imikana waa habeen waxaan u mareynayaa waa habeen marka galbeed telefoonada kugu badan waxba socod gurmad baa waxaan ku leeyahay gurmad baa u baahan tahay shaca go'doon baa lagu sameeyay dadkii baa telefoonka igu waalayay go'doon baa lagu sameeyay waa la weeraray ciidankii Cabdi Ilay ee new police uu bixiyay ciidankii qabiileed yaa dalkii qabsatay yaa magaaladii qabsatay ay shaca xitaa dadkii maatidii ubadkii iyo ciyaalkii way u dumarkii ciyaalkii bay la carareen dakhal bay maartay ay lugeeyeen baa la yiri marka waxa loo sameeyaa maartay gurmad ciisaha kale meel la meel joogan wayna u gurmadaan walaalayaal cajaradana fidiya oo Dirdhabe waxay sheegayaan shirka un bay sugayaan bari markuu soo gabagabaysmo iyo hadduu Ilaahay yidhaa ay rajaynayaan inay maartay ay u gurmadaan walaalahood u gurmada walaalayaal waxaan doonayaa degdeg taa markaan sheego walaalayaal waxaan doonayaa ay shaca u gurmada waa la go'doomiyay ciidankii Cabdi Ilay uu watay maartay yaa rasaas la dhacay qaarkood xitaa meeshii ku go'doomiyay waa laga qaxay u gurmada walaalayaal u gurmada kuwa qurbaha joogan waxaad u qaban kartiin u qabta inaguna walaalay cajalada fidiya imika ila soo hadleen telefoonka ii soo dhacay weeyaan waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalayaal horta ninkii walaalkeed baan yaan u sheegayaa dadkan walaalaheena leh waxaan Soomaaliya u qabanay waa run Soomaaliya wax weyn baan u qabanay laakiin mid bay ka tagayaan walaalayaal dalka Djibouti laba dawladood baa isgarab socda dawlad majlis lagu hayo islaanta Khadraxay oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo uu qabo iyo kooxdeeda ay wadataan iyo dawladii kale rabsiga ahayd ee caadiga ahayd waa soo macneeyba protocolka sida loo sameeyay waa si qalada warqad in la qoro oo lacay tamo ma hayn waxay ahayd in safiirka loo yeero hadalka waxaan ugu soo celinayaa ninkii imika kula hadlayay ee ka go'ay telefoonku in safiirka loo yeerahay in diblomaasiyad lagu dhameeyahay laakiin dawlad maaha meesha ku celcelinaysa telefoonku badan yahay badan tahay socod waana ku celcelinaya qolooyin burcada oo maaragtay ay reerka maaragtay iyadu ay wadato ee Khadraxayda wadato yaa waxan wata marka ha ku jabina waxaan u sheegayaa teeda labaad rag badan oo ciisa markay soo galaan meesha yaa isqarinaya oo meel madow galaya cusbayaan kule isma qarinayaan maxay la cabsoonayaan raggan hadday cabsoonayaan waxaan ka yaabay
kuwaas oo qoray je suis une femme Djibouti n'avait pas le tribalisme monteuse ana dhegeysan anaga iskaga bax maxaa naga dhegeysan waa iska maya waa iska naiif waa wixii laga dhaadhiciyey waxaan hadday qabiil ay jirin ay daacad tahay meeshu waay haddaba maalin walba raashin loogu geynaya saylac lagu haysteed oo maalin walba loogu geynaya hargeysiya gabiile oo loogu geynayn belbela su-aasha doonaan weydiiyo waay aan loogu geynayn kaartiyada gaaja iyagaba hayse waay tajoori iyo ubak loogu geynayn marka aawey jibuutaanitega walaal ilaahay xagu caqligaaga geeyey waa doqon weeyaan qofku hadduuna caqligiisa isticmaalayn oo been loo sheegayo oo uu cawaan yahay dee waxba uma qaban karaysid qabiil ma jiri iyo jibuutaanite ismacaanayska iska daaya iyaad isku macaananaysid dadkani waxaan dan inigama galaan they don't care carabtii maanta carabtii yamantii soomaalida ku gorgooracaysay yaman markay u qaxeen ee xitaa leynaysa hablihii soomaaliyeed kubsanayay waa inaa la laaya ahaydba kuwa inaa la kubsado oo la faraxumeeyo Djibouti Soomaaliya iyay ahayd wayna soo dhaweeyeen Soomaalidu aad baan uga xumaaday arrinta ha iyay maanta sida loo soo dhaweyn maanta Djiboutina sida loo soo dhaweynayo marka inaad caqli la yimaada meesha dalka Djibouti waa la baabiinaya dalka Djibouti halis buu ku jiraa waxaad la doonaya in la baabiyo walaalayaal fahma meeshani maaha sida looma sameeyo diblomaasiyadda warqad intoo la soo qoro safiir la yidhaa orod akhri oo madaxweynaha cay Ethiopia may ku sameeyaan abi Ahmed saa ku sameeyaan qotiga may ku waxayaan ila isagu wasaa maartay ninka miyay abi Ahmed ra'iisul wasaaraha may warqad balolo u dhibay isaguna saas laga yiraahdo taa waxay nigu barsiyooreen waa iyaga waxba ma gelin laakiin dalka Soomaaliya war dad walaalaanay hadday walaal yihiin maxaad u dhibaataynaysaa oo aad waqooyiga maartay aad musabixi kaarbad casugu dhigaysaa waay aad maartay raashin ugu geynaysaa waay dagaalka tuqarraq ka socda aad raashin iyo hub ugu geynaysa sida dadka walaalaheen ee dhulbaahanta ee degan loo baabiinaya Mustafa Maxamed ha waay dad dhulbaahantaha iyo maartay warsageliga iyo telefoonadu way kugu badan waan la socdaa anigana 10 minute baa ayaa dhig ku socda ee hartida la yiraahdo way loo baabiinaya walaal meena ibaarad aqli lahayn way dal Soomaaliya haddaad ad garanaysid waxay ka dhigantay inta oo dhan waxa uu sameynayaan waa Djibouti ha aqoonsado Djibouti kala dir Soomaaliya iyo kala dir dadka reer Djibouti shacabka reer Djibouti iska ilaaliya hadhow baad ku calaacalaysiin afartan isaaq oo dhan isku jiraan isaaq oo xitaa habara wal oo dhan ba isku jirin way Daawudku way ka baxeen way ila toljecle Ciise Muuse kuma jiraan Ciise Muuse kuma jiraan way ka baxeen wax weeyaan waa Sacad Muuse iyo habar jecel xitaa maartay Cimraanku kuma jiraan waa soo raac bay yiraahdeen Cimraanku kuma jiraan marka ninba su'aal qabay alo alo maxaa su'aal baa qabtaa wad igu soo celinaysaa maanta dhano calaykum salaam عليكم السلام بوقا كبحدي بوق باكو دح سعودي سيدي عم بقوم القيام مع سؤال بعد قبطة برنامج كمان لسعودي يا اي سؤال شاقبتي وامح سؤال ما قبل لكن انا افتكر برنامج برنامج كهذا فكرة هذا وببانين برنامج كوحو كهذا كهذا برنامج كده فكرة هذا برنامج بيصوروا كده يشوفوا على مدرك كده علاقات في مدرك كده الصومالي هذا حل تراجعي jirtay horta waxa weeyaan arrinkan madaragtada Soomaaliya madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo sameeyay waxa naga tago wax majlis ka soo hadlay ma malqay soco bas ka gooyo soco majlis uga dhacay soco waxa weeyaan
meesha maaragtay dadka reer Djibouti la dhaba habaabinayo ee la doonayo in lagu shaqaysto horta inay fahmaanba dalkoogii karaamadda ay lahayd yaa la wiiqayba waayo dalku wuxuu lahaan jiray saas soo sheegay dowladdii xasan guuleedba waxaa la samayn jiray diblomaasiyad sharafi ku jirto waxa weeye markuu dal kugu xadgudbo ood weliba walaal tihiin dee nooc diblomaasiyad baa loo isticmaalaa farmaajo hadalka uu tuuray waa run uu ku qaldan yahay oo ma wanaagsano inuu taa sameeyahay laakiin maxaa ku kalifay dee isagaa ka jawaabi karay hase ahaato laakiin dalkii Djibouti maanta kolkii horena umay dhutinaynin Eritrea 2008 ilaa imika haysatay dhulba haysatay ay leeyihiin maxay soo raadsan waayeen waa ina sidii daacadda loo hadlaa farmaajo waa mayorka muqdisho weeye dalkii madaxweyne uu Soomaaliya ka muqdisho waxa ka baxsan ma maamuli karo waxaana ugu wacan dawladaha faraha kula jira oo maaragtay ay dhabar jibinta ku haya ay Djibouti ka mid tahay laakiin maxaa ku kalifay isaga taa inuu ilaahu dhabar jibi ku sameeyo Djibouti de isaga ka jawaabaya ma qaldan yahay uu ku qaldan yahay laakiin Djiboutina yadii waa dal ma inay ka sii qaldalaato oo ay niman maaragtay doonaya dalka inay burburiyaan ay daba qaataan ay sheekada xure foolxir ay sameeyaan ba maya Djibouti inay ka weynaato wayata oo in warqad majlis lagu soo qoray in loo soo dhiibo balalo maaha dalka Soomaaliya waa ilaa iyo maaragtay loo yacday inay dawladda Djibouti ay xaq dhowrto way inay waqooyiga nimanka Soomaaliland la baxay inay faragelinta ay ku hayso ay safiir baan u furnaynaa safaarad markaas Soomaaliyada sheegaysid maxay tahay walaalayaal Soomaaliyada marka dadka reer Djibouti ay leeyihiin waayo Soomaaliya waa ilaa iyo xuduudkii Djibouti waa ilaa iyo xuduudka loo yacday ay Djibouti wala wadaagaan iyo Ras Kamboni de waa inaan sideedii waxaan u galnaa walaalahayo sideedii waa inaan dalkani laba dawladeed baa ka dilaacay dawladda Khadraxayn iyo dawladda Ismaaciil Cumar Geele marka dalka in la badbaadiyo waa u baahan yahay shacabka reer Djibouti dalkiina badbaadsada war wallahi billahi waad ku cali doontii berito ragga maxay noodhanay baad leeyihiin iminka inagu dad isku macaanayaad leedihiin hadan yidhaahdo ragga qabiil bay wadaan baba Soomaaliya waxaan u qabanay wax badan baan u qabanay imikadan ciidankeennii baa jooga heel walaal ciidankeennii baa jooga waa in lagu dhaliilo reer Soomaaliya ba ku dhaliilaya farmaajo oo aad u dhaliilaya wayna xaq bayna u leeyihiin inay madaxweynahooga yidhaahdeen waxaan ka naxay xitaa islaam baa sun cabtay buu yidhi xalay toro la ii soo diray islaam baa sun cabtay farmaajo arrinkuu sameeyey ka naxday oo nacam sidee buu Eritrea uga raacaa dee farmaajo waa su-aal u taala meeshaan weydiin doono oo ugama hadhayno waan weydiinaynaa maxaa ku kalifay inuu sidaa sameeyo laakiin Djiboutina inay samaysan maahayn ay maaragtay iyaduna warqad majlis lagu soo qoray wasiirkii arrimaha dibadda Djibouti safiirkii Soomaaliya jooga Djibouti jooga lalababa hadalba safiirkii Soomaaliya waxa lagama soo qaadin in loo yeero soo maahayn uu ismacneeyo oo la yiraahdo dawladdaada waxaan si degdeg uga rabnaa ismacnayn maxaa ku kalifaytaa marka waxa jira waxa la yiraahdo diblomaasiyadda waxa la yiraahdo damage control kolka baa laga daba tagay daba qabatay loo sameyn lahaa laakiinse dalku imika u fiirsada Donald Trump waxyaalaha uu samaynayo madaxweynaha Mareykanka waagi sababu waxa uu jawaabay ra'iisul wasaaraha Canada sida uu ahaa uu ugu jawaabay dawlad kastaba sida aad adigu tahay madaxweynuhu yeeyma kugu jawaabaya Ismaaciil Cumar Geele siyaasadiisa ciyaala suuqnimo yaa laga yaabaa inuu isaguna ugu jawaabay de dal gabal idiloo waqooyi loo dhalay yuu faragelin ku hayaa marka inuu farmaajana isaguna samaysto waxa la yidhaha ally la yidhaha luqadda ingiriiska faransiiska aliye la yidhaha amba saaxiib uu samaysto de maxaa u diidaya ilaa adigii laba dhabar jibi ku wadeen
dalka dhulka Soomaaliya maanta wax hayso Eritrea dhibaatada ay ku hayso Djibouti waxay wax la qaban lahayd Soomaaliya hadday Djibouti dalkii Soomaaliya soo celiso ay waqooyiga ay naasnuujinayso ka dayso oo loo yacada ilaa Raskamboni dalkii uu soo noqdo ciidankeega lala dhiso kolka dhaqaalihii lala dhiso iyo kolkaasi dawladda Soomaaliya tawada xitaa dagaal bay kula galaysaa oo anu waxaan qabaa amba farmaajo hadiido amba hadoona shacabka Soomaalidu haddii dawladda dalka Djibouti ay Eritrea soo weerarto inay shacabka Soomaaliya imanayaan ay Soomaalidu waliba koonfurtu inay imanayaan dagaalamayaan baan garanaya dhiiggeeni weejaan waa baleedkeena maxamed waxa ii hadhay waqtigayga anoo dhaafay brother 5 minute igu soo gabagabay fasax ma soo qaatay 5 minute way ii gaadhay waqtigayga waan gabagabeeyay laakiin dadka inta kale dadka si ama ku soo gabagabay waan kaaga baxay walaalado iga raaliya aad baan soo ugu adkaynaya okay walaalahayo aad iyo aad anaa soo gabagabaynaya insha Allah anaa soo gabagabaynaya maadaama waqtigii gaadhay walaalayaal barnaamijka maanta sidoo ahaa waxaan aad ugu hambalyeeynaya dhalinyarta sida quruxda badan leh ee barbaarta city ee shirki dirdhaba ka dhacay hableeni qurux barnaamijka kuuleysay u soo dhameeyeen Soomaalida mar waliba Soomaalida hormood baan u nahay Soomaalina waan nahay kamana uqdadaysaneyn hadii aan nahay Sheekh Ciise hadii aan nahay kama uqdadaysaneyn Soomaali waan nahay anagu sidoo qolooyin guna ma oranayno axmaarka iyo Etoobiyaanka baa walaalaheena ma oranayno haddii dad iyaga laga laayay annaka wana naga laayay 60kii markay Soomaaliya ku dhawaaqday Soomaalinimada meeshii ugu horeysay calan laga taagay ay shucu ahaa ay shaca waa deegaan Ciise calankii Soomaaliya laga taagay 60,000 oo rag baa lagu dilo Ciise kama cala calim haramaayo meel la yiraahdo 12,000 oo rag oo Ciise lagu dilay annagu ma soo faqan meelo ma oran waa dadka yagii baa la laayay gobonnimo horaan u socon Soomaalida dhinaca degan oo dhan ogaadeen noqotay waxay doonto noqotay nin ka taagay calanka Soomaaliya xiniyeega male ana leh oo Ciise waana ka taagay 60kii Soomaali min Maxamuud Xarbi ila ma uu yeeshin midnimada Soomaaliya annagu waan jecelnahay inta oo dhan waxaan u leeyahay walaalahayo shacabka reer Djibouti iyo shacabka Soomaaliya waa dad walaalaheena waana aqoonsanay waqtigan gobonnimada qaadanayna Soomaaliya inay soo garab joogsatay Ismaaciil Cumar Gelle iyo dawladdiisa weejaan wax dhibaatada iyo fidnadaawada inta qof ay magac reer Djibouti ku hadleena waa in la soo kareystay in matalama shacabka reer Djibouti Soomaaliya ha noolaato min loo yacda ila ma Raskamboni waa Soomaaliya caasimada koobaad ee Soomaaliya waa Muqdisho caasimada labaad ee Soomaaliya waa Hargeysa waxay tiraa islaan eedadeen nimca jaamac ninkii hadlayaaba iska hadlay wallahi hawlo way dambaysaa one love Soomaaliya barnaamijkan waxaan u bedelay waa jimcihii cadaaladiid waa nabadiid mar waliba video sameeyana YouTube ban ka dhiga YouTube kaygu waa nabadiid TV waa kan walaalahayo waan tusaya subscribe iyo waxa subscribe YouTube kaygu video waliba sameeyo YouTube ban ka dhiga nabadiid TV marka subscribe iyo sameeyo hadda dhinaca ku qortay nabadiid TV simple nabadiid TV وريه ولا لا أستاذ سيشر كرواكا يرسك واكا أنا وكي الذي ستة نبدي تي وريه واكا ولا لا يو نبدي تي في سبسكرايب that's it خير بني رجينيا ولا لا يو جمعة مبارك عدالة الديد والنبديد سيشر جرينا إلهي جمعة كلا سخير قبان نسكو شركة مركز لسوق قبل يدر دمنا وحن نقب لما وحي كسوا بحي وريه نجوع دي سببا أم بدر دبي إنه نصور رمو عيسى وعيسى نينا عارم الديرو باي